video maanta duura laakiin ma garanayno waxaan ka duubo wax walba dunidii aan ku hay dhammaan wada duubay hadda wax aan ka hadlan karan laha marka soo martay inaad video duubi weydo keliga ma ahan arrintaas midaan waa mid dhalinyarada badan oo wax soo gudbisa dhammaan wada haysato qof walba oo ama youtube ha kusoo gudbiya ama instagram ha kusoo gudbiya haddii aadan ahayn adiga qofka dadka waxooda soo qaato oo sii fasira haddii adigan aad ahayn balse aad tahay qof mar walba maskaxdiisa shiilo oo wax soo gudbiya haddaad tahay waxaa qasab mar ka mid a in arrintan kusoo martay marka waxaan rabaa maanta kula wadaaga halka arrintaas inaan isla fiirino maxaan xal ugu raadin karnaa sababtay ku dhacday dadka qaarna in micnaha inay wax soo gudbiyo intay soo gudbiye dadka qaarkoodna inay wax soo gudbiye intay waayaan ay iska dhaafaan oo waqti qaataan iyo dadka qaarkiina inay daily usoo geliyaan qaarkood isbuuc 2 jeer 3 jeer 4 jeer ay usoo gudbiyaan marka waxaan rabaa maanta sirtaas inaan kula wadaago adigoo wax isticmaalayo maskaxdaada maaha inaan ku dhahayo telefoonkaada iyo meel aad kuma dhahay laakiin maskaxdaada isticmaalaysa waxyaalaha waxaan ku rabaa inaan kula wadaago application ma yaraan jiro oo hataa aniga shakhsi ahaanteyda isticmaala ma ogin hataa marka hore waxaan raadan jiray ayagoo micnaha lacagta qaabka iskaga bixisaa mid lacag maa gadataa laakiin marka dambe aniga ayaa markaan telefoonka gudaha ugu noqday mana aaminaysid in applicationkaas telefoonkaada ku jiro laakiinse hal midaas waxaan ka horreysayna horta ma uga warta sababta keenta ban horta dadka micnaha inay wax soo gudbiyaan qofka mar soo gudbiyo mawduuc soo gudbiyo marka dambena ka istaaga maxaa sababa qofka waxaa sababa waa laba shay mise lambar kow horta dadka hore uu ku xirna tusaale ahaan oo waxaan kasoo naqlinaya dadka isku mid ma dadka qaarkood waxa maskaxdooda shiilan way fadhiistaan way qoraan dadka qaarna waxay sameeyaan micnaha research sameeyaan oo waxa weeye mawduuc micnaha dad bay ku xiran yihiin oo mawduucyo ka dhageystaan marka wixii qancina okay waxa soo qanciyo uu asxaabtay ugu xiran daan la wada ka waran intaas taas qof ku soo qaada taas waa mid ugu fiican waayo mar walba micnaha waxa fiican cilmi ma dhamaado qof wax baranaya tamar baday cilmi ma dhamaado adiga maanta youtube ka daawanaysid hadda waxa weeye waxa daawatay waxa ragsiiraysid wax kala sii daawanaysid waa macquul hadii inaad tiktok soo daabatay hadda waxa macquul inaad midaan dhageysanaysid waxa keenayo qofka horta cilmi ma dhamaado taas marka mid inaan ku tuso in cilmigu u dhamaanayn waxa kale marka qofka saameyn mar walba kule dadka uu wax ka dhageysta ama dadka micnaha social media uu follow gareeyo salahan hadda adiga youtube isticmaalaysa dadka aad ku xiran tahay subscribe dadka u tahay oo mar walba baraanka lagu sameeyo waxa soo galan arkaysid micnaha waxaad noqonaysaa qof maskaxiisa dhimanaysa anigu ma dhahayo waxa daawan laakiin se waa inaad ogaataa horta micnaha maxaan ka faa'iidaya waxa ka daawanaysa waqti ku saabtan maxaan ka faa'iidaya laakiin dadkaas marka dad noocaas ku xiran tahay xaraan bay ka tahay inaad micnaha nooc inaad duubto laga yaabaa inta video soo qaadato dhahaniyo heblaay baraankan lagu sameeyo micnaha aad wujul biyaday micnaha ma aqla ma noqonayso dadku kugu xiran mar walba waxay kaaga baahan wax micnaha ay dhibaato haysana ka xalisid oo channelka waxaas u dhaysan yahay mar badan oo kaana muhiimada channelka u dhisan waa in micnaha dadka uu garab siin karo micnaha qof bulsho halkeeda raadin kartaa marka dadka marka aad raacdid oo tusaale ahaan ama follow u samaysid instagramka ama tiktok da isticmaashid instagram inkastoo aan ku dhihi tiktok da isticmaashid waa ku dhamaatay waxa weeye consumption ma ogi meesha waxaa kama soo helaysid oo waxa weeye waaba wax micnaha weyn kama soo raacay waa video yar waaye marka haddii marka aan ka hadalno waxaa jira waxyaala wax la jiro podcast waxa weeye in micnaha dadka micnaha waraysiyaasha ama dhaqaale ahaan hadba wixii micnaha mawduucan ka samaysan inaad dhegeysid oo micnaha waqti qaarkood hal saac socdaan qaarkood 2 saac socdaan 30 daqiiqo dhowr iyo 10 daqiiqo mawduuc wuxuu ku saabsan yahay intuu dheerka leeyahay marka google podcast wax la jiro aniga hadda kor maraha soo xawishtay boardbin baa la yiraahdo waa xawi application $29 yaa lagu bixiyaa sorry $9 lagu bixiyaa bil walba waa boardbin waa la yiraahdaa waa soo xawishay tu kala jirto aydan waxa Spotify aydan $9 dhammaan application ku sheegaya waa platform waxa way transfer gashanaysa $9 iska bixinaysa subscription bil walba wax walba gudaha ku jira hadii heesta iyo hadii wax walba rabtid meesha ka helaysa marka waxaan rabaa marka inaan uga faa'iideysto marka adoon boardbin kuwaas lacagta isticmaalin google bixiyo telefoonka hadda isticmaalaysid ama xataa hadda soo gashan kartaa automatic soo gashaa sida youtube automatic soo gasho yaa ayana soo gashaa waxa la google podcast ma ku dhufatid qofka asleeda raadinaysa ama mawduuc bas ku qoraysa message-ka way ku soo baxaysaa waxyaalaha markaan arko wallahi wala yaa maalinkaas wixii ka dambeeyay awal waxaan jira micnaha maxaan ka hadlaa mawduucan isbuucan waxaan soo gudbiya laakiin hadda iguma dhibooto waayo waxaan ku xiranahay bulsho anigu lamid oo content creators ku xirana oo barka soo gudbiyo markaan dhageysto oo alla ilaahay wax baan ka soo qaadan midkaan daan waxba ka helin kan kale wax ka helo sanad investment tahay hadii micnaha content wax lagu soo gudbiyo tahay mar walba macluumaad micnaha waxa qof mar walba arday oo wax baranay hadii aad ahayn qof arday mar wax baranayna xaraan bay ka tahay inaad dad wax u soo gudbin karin waayo adigii wax ma baranayso wax dheeraad ma saysanaysid yaad wax u soo gudbinaysaa yaad wax ku soo korinaysaa waa qofna laakiin ugu wada taasna ugu weeye qorshe ku darso waa free applicationkaas applications waa free inka had micnaha dadka raacis xalaga inay kugu dheereeyaan laga yaabaa 2 daqiiqo soolaan 2 saacadood inay soo gudbiyaan qaarkood laakiin se muhiim maahan adiga noqonin monkey man noqon qof micnaha mar meel ku bood dad monkey man waxa la garanayeen waa bariyahan dambe soo baxday hataa ogaansho hataa video ka sameeyay monkey man xalla daanyeerka markuu geedka saaran yahay marba meel ku booda caleenta ku booda marka noqonin qof hadda micnaha mar youtube daawad ka booda marka instagram tago ka booda dana tiktok tago dana wax daawada ka sii booda dana xagga whatsapp galo qof dana micnaha chat soo saarta daawada monkey man noqon waxa noqotay qof micnaha waqtigiisa mar walba ka faa'iideysanayo oo waxyaalaha asaga micnaha wax ku soo kordhin dhageysta noqontaas horta waa nasiixo mar walba inaan dhalinyarada la wadaago waayo hadda waxa soo batay waqtiga in la dilo zaid u soo bato marka waxaan ku leeyahay taas horta isku waxeen isku day in micnaha waxyaalahaas content banot kuma dhacayso mar walba wax ka soo sameeysan video ka soo sameeysan waa diraysa dadka hore u raacid oo youtube ku xirantaan iska bedel dadkaas day waxba kugu soo kordhin dadka asleeda waxbay kugu soo kordhin raac mawduucooda dhageyso waqti qaado mawduucooda wax kala bax markaas ka bacd bulshada kugu xirantaa wixii ka faa'iiday u soo gudbin ku leeyahay taasna waxa lagu leeyahay mar walba content ideas si fiican loogu hela haddii aadan gareyn waxa soo gudbisana mar walba wax ku noqon doonta meeshaas meelaha wax ku soo gudbiso dadka ugu soo sheegtid
haddiise aad tahay haddiise aad tahay laakiin adiga inaad micnaha content ideas waxaas rabin oo rabtid in micnaha qaab kala jiro ayadana wax loo soo gudbiyo oo tusaale ay ka helaan jiro dadka hadda aad u jecel filmaanta inay soo waxayeen aad u jecel jiro video aan ka sameeyay filmaanta meel laga hela iyo sida loo soo recap gareeyo iyo sida loo soo gudbiyo video aan ka sameeyay meeshaan ku dhigaya video daawan kartaa. Assalaamu calaykum.